السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada channelka B3CS kanna waa example labaad oo aynu kaga hadlayno DDA algorithm daraad waxaynu soo sharaxnay DDA algorithm example 1 this is example 2 waxaa laga rabaa input coordinate-ka A iyo B waxaana la siiyey A oo u taagan x1 and y1 iyo B oo u taagan x2 and y2 meesha uu ka bilaabanayo graafkeena ilaa meesha ku dhamaanayo graafkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa like x1 keena waa 15 let's example intayna 15 tahay x1 keena x2 deena waxa waaye 25 let's take 25 y1 teena waxa waaye 8 let's take 8 y1 intayna tahay 8 and this is y2 which equal to 20 y2 so okay so line-ka wuxuu maraa meeshaan ka bilaabanaa ilaa intaas uu maraa maadaama intaas uu maraayo line-ka uu ka bilaabanayo starting from here to here so waxaan laga rabaa inaan xisaabino line-kan how many pixels ku jiraan how many pixels ku jiri karaan line-kan inta markii la sawiraayo oo x point iyo y point meeqa pixel ku jiri karaan meeqa pixel ku jiri karaan inaan xisaabino anagoo isticmaalayna DDA algorithm so DDA algorithm wuxuu lahaa bunch of steps oo haddii slope-kaada uu ka weynaado saan hadduu ka weynaado marka waan ka fiirin doonaa insha allah so aynu soo qaadano marka koowaad horta waxaan xisaabinaynaa linear solution xisaabinaynaa slope-keena mten waxaa lagu helaa delta y divided by delta x which equal to 15 x2 y2 which equal to 20 minus y1 oo la mid ah 8 divided by x2 oo 25 ah oo laga jaray x1 oo 15 ah equals to 8 divided by intana 10y waa labadan markaas ku qabin waxa soo baxayo 1.2 so marka slope-keena maanta wuxuu ka weyn yahay hal ka weyn shalay waxaynu soo sheegnay haddii slope-keena uu ka yaraado hal waxaa kordhaynaa dhanka y key ay xisaabinayna waxaa dhihina y sub key plus 1 waxay la mid tahay y sub key plus m slope-keena halka delta y ee delta x ay la mid ahayd 1 maadaama dhanka y loo kordhayo y u shaqeynaysa maanta dhanka x u kordhina oo sidaan u kordhina marka delta x teena maxaa la yiraahdaa slope-keena wuxuu ka weynaaday hal maadaama hal uu ka weynaaday waxaa isticmaalaynaa qaacidada labaad oo ahayd haddii slope-kaadu hal uu ka weynaado x sub k plus 1 waxay la mid tahay x sub k plus 1 divided by m y delta y ay kula mid tahay 1 mar walba maanta waxaa u kordhaynaa dhanka x y-dayna waxay la mid tahay 1 so xisaabina waxaan leenahay x sub k plus 1 waxay la mid tahay x sub k plus 1 divided by m marka x sub k dayna waxay la mid tahay marka x sub k plus m waxay la mid tahay initial x meeqa waay 15 waaye 15 waxaa leenahay plus 1 divided by m 1 divided by 1.2 calculatorka soo waxaa leenahay 1 divided by 1.2 which equal to 0.83 let's minimize it okay waxay la mid tahay 0.83 marka waxaa noo soo baxay 15.83 so marka slope-keena markaas yani sawirayna horta waxaa dhihinay meeshaana u taagan constant aha numberka inta oo x sub k iyo y sub k x point iyo y point so marka koowaad x sub k waxay ka bilaabanaya initialkeedu waa 15.8
so wax iskama bedelin waa 15.8 marka ilaa waxaan sawiraynaa yani linekeena 25.20 markaan gaarno. Okay, so stepka labaad aan marayno waxaan leenahay slopekeena aan kasoo shaqeynay waxaan leenahay waxaa noo soo baxay 15.3 waxaan leenahay 15.83 meeshaan way increase garowi doontaa maadaama dalka y ee la mid tahay 1 mar walba waxaan ku dari doonaa 1 so 9 ay noqonaya meeshaan waxaa laga rabaa round inaan ku sameyno round micnaheedu waxa waaye nearest point ee aad geyno aan 16 aadan so marka waxaan leenahay 16.9 okay stepka saddexaad wuxuu noqonayaa 15.3 aan soo baxaan u haysanaa maanta waxaan leenahay waa x sub k a sub k plus 1 waxay la mid tahay x sub k plus 1 divided by m. So 1 divided by m was 0.83 y. Waxaan leenahay 15.83 plus 0.83. Sidaan ku wadaynaa ilaa ka dhamaynin slopekeena. Waxaa dhahdaa 15.83 plus 0.83 which equal to 16.66. So marka waxaan soo baxay 16.66. marka meeshaan waxaa leenahay slopekeena waa 16.10 intan waxay noqonaysaa 17 mar walba round aan ku sameynaa round ku samey 17 ay noqonaysaa meeshaan 17.10. stepka afraad wuxuu noqonayaa meeshaan waxaa haysanaa 16.66 16.66 markaan ku darno 0.83 which equals to 17.49. So markaan waxaa haysanaa 17.49. So 4 wax lagama qaadi karo round laguma sameyn karo waxaan leenahay waa 17.49.11 inta waxay noqonay 17 only maadaama ay yani wax round inaan lagu sameyn karin 17 only ay noqonay maadaama meeshaan ay 4 tahay oo sidaan ayaa ku wadi doonaa ilaa aan ka dhamaynayno yani stepskeena waxaan haysanaa 17.49 haysanaa plus 83 which equal to 18.32. So come here and say it 18.32.12. Come here and it's 18 because it's nearest point together how I 18 or 12, count 5 here. Okay, so step 7 wuxuu noqonaa 18.32 inaan ku darno 18.32 83 ku dar waa 19.15 so 19.15 13. Come here and let's say 19 round marka lagu sameeyo 19 le waa nearest point together 19y 19.13. So stepskan waxaan wadi doonaa ilaa aan ka gaarno xta oo 25 ah y-da oo 20 ah marka stepska aan gaarno waa noo dhamaaday marka I hope inaad fahantaan fila DDA algorithm examplekii hore iyo examplekan so waan ku mahadsantahay daawashada.